wacan daawadayaal halkan waa xogta qarsoon maalmihii u dambeeyay waynu isweynay balse mar kale dib ayaan isugu soo laaban doonaa inagoo warbixinadeena cajiibka halkan idinkugu soo gudbin doona muuqaalkani waxaan ku soo koobayaa niyadjabka Faransiiska Mareykanka iyo Australia waa ay qiyaameen kalsooni darro ay nugurideen sida ay sheegeen Faransiiska xiisadda Faransiiska kala dhaxaysa wadamadaas oo xaalad cusub gashay muxuu yahay gujiska hubka nuclear-ka xambaara sidee ayuu u shaqeeyaa muuqaalkani ayaan ku soo koobayaa daawade haddii ay tahay markii ugu horreysay channelku soo gaaro bartan waa xogta qarsoon magacaygu waa Yaxya Maxamuud Maxamed waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like gareyso share gareyso sidoo kale channelka subscribe aad saarto hagaag wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ayaa ku eedeeyay Australia iyo Mareykanka inay ka been sheegeen heshiis cusub oo dhanka amniga oo sababay in Paris ay u yarto safiiradeeda waraysigu siiyay telefishinka France 2 Jean-Yves Le Drian ayaa sidoo kale ku eedeeyay wadamada khiyaano inay jabiyeen kalsoonida dhextiilay heshiiska oo loo yaqaan AUKUS waxa Australia u ogolaanayaa inay hesho farsamadii ay ku dhisi lahayd maraakiibta quusta ee quwadda nuclear-ka talaabadan ayaa carqaladeysay heshiis bilaayin dollar ku kacayo Faransiiska uu la galay Australia heshiiska waxaa sidoo kale ku jirta UK si weyn ayaa loo arkaa inuu yahay dadaal loogu hortagayo saameynta China ee badda Koonfurta Asia oo lagu muransan yahay Faransiiska ayaa lagu wargeliyay saacado kor inta aan lagu dhawaaqin heshiiska horaantii toddobaadkan isagoo hadlaya Sabtidii Master Le Drian waxa uu sheegay in xiisad daran ay ka dhex jirto xulafada xaqiiqda ay markii ugu horeysay taariikhda xiriirka Mareykanka iyo Faransiiska dib ugu yeerno safiirkeena si aan ula tashano waa fal siyaasadeed oo culus kaas oo muujinaya baaxadda dhibaatada hadda ka dhex jirta wadamadeena ayuu sheegay France 2 waxa uu sheegay in safiirada dib loogu yeeray si ay dib ugu qiimeeyaan xaaladda xogayaha arrimaha dibadda UK ee dhawaan la magacaabay Liz Truss ayaa heshiiskan ku difaacay maqaal uu ku qoray wargeyska The Sunday Telegraph isagoo sheegay inuu muujinayo sida Britain ay diyaar ugu tahay in dhaga ay ugu fureysato si ay u difaacato daneeda heshiiska ayaa la micnaa in Australia ay noqon doonto dalkii toddobaad ee adduunka oo ay ka howlgalayaan maraakiibta quusta ee ku shaqeeya nuclear-ka ku dhawaaqista wuxuu soo afjaraya heshiis ku kacaya $37 bilyan oo dollar oo Faransiiska uu la saxiixday Australia sanadkii 2016 si loo dhiso 12 maraakiibta gujiska ah dhanka kale China ayaa ku eedeeyay saddexda quwadood ee ku lugta leh heshiiska amniga inay leeyihiin maskax ka fikiraysa in China lagu qaado dagaal qabow sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in maamulka Biden uu la xiriiri doono Faransiiska maalmaha soo socda si loo xalliyo khilaafaadkooda wasiirka arrimaha dibadda Australia Marise Payne ayaa sheegtay inay fahanteen niyadjabka ku dhacay Faransiiska ee rajaynayso inuu la shaqeeyo dalkaas madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maalmaha soo socda wada hadal telefoon la yeelan doona dhigiisa Mareykanka Joe Biden xilli ay xiisad diblomaasiyadeed ka dhex oogan tahay labada dal ee xulafada waa sida uu sheegay afayeen u hadlay dowladda Faransiiska Gabriel Attal Faransa waxay raadin doontaa sharaxaad ku saabsan baabi'inta dalab Australia ku iibsan lahayd gujiska Faransiiska kaas oo hadda ay ku iibinayso Mareykanka sidoo Attal u sheegay telefishinka BFM TV dhanka kale Australia waxay difaacday ka bixidda heshiiska gujiska Faransiiska waxaana ay sheegtay in muddo Paris ay la wadaagaysay walaac ay ka qabto koreyntaan heshiis cusub la saxiixan Mareykanka kama shalaynayno go'aanka aan danta qaranka Australia ugu dhignay mid ka koowaad waxaa sidaas yiri ra'iisul wasaare Scott Morrison Australia ayaa ka baxday heshiis 2006 la gashay shirkadda Faransiiska Naval Group oo ay ku dhisi lahayd gujisyo waxaana Khamiista ay ku dhawaaqday in 8 gujis oo dhisi doono Mareykanka taas oo qayb ka ah heshiis amni oo sidoo kale Britain ay ku bixin doonto tiknoolajiyadda talaabadan ayaa ka careysiisay Faransa oo xulafada NATO la Mareykanka iyo Britain taas oo dhalisay inuu yarto safiiradeeda Washington iyo Canberra Morrison ayaa sheegay inuu dareensan yahay in niyadjabka Faransiiska ay baabi'in doonto dalabka lagu qiimeeyo $40 milyan oo dollar hayeeshee wuxuu ku celiyay in Australia ay go'aanadeeda ay qaadato si waafaqsan danteeda ugu wanaagsan tan waa arrimo bilo ka hor aan shakhsi ahaan ula soo hadal qaaday waana ka wada hadlaynay arrintan iyadoo ay qayb ka tahay wasiirka difaaca ayuu yiri Morrison heshiiska cusub waxa uu horseeday xasarad diblomaasiyadeed oo guud ahaan dunida qabsaday heshiiskan oo sidoo kale dalalka isbeeyay ay ku wadeegayaan awoodaha internetka iyo tiknoolajiyadda ayaa la taliyaha ammaanka ee qaranka UK Stephen Lavagorov wuxuu ku tilmaamay inuu muujinayo isbeddel istiraatiijiyadeed oo weyn waxay la micno tahay in Australia noqon doonto dalkii toddobaad ee dunida ee adeegsada markabka quwadda nuclear-ka ku shaqeeya Lavagorov ayaa sheegay in heshiisku yahay iskaashi awoodeed oo ugu muhiimsan ee ka dhaca meel dunida ka mid ah 60kii sano ee la soo dhaafay China ayaa dhanka kale ku eedeeyay isbaaysiga inay ku fikirayaan dagaal qabow kaas oo dhaawici kara danahooda gaarka wargeyska dowladda Junean leedahay ee Global Times ayaa ka digay soo safidda ciidan isagoo intaas raaciyay in ciidamada Australia u muuqdaan inay noqonayaan kuwa ugu horeeya ku dhintay iska caabinta China
maantana madaxweynaha China Xi Jinping ayaa sheegay in quwadaha shisheeyaan loo ogolaan inay farageliyaan arrimaha dalka mustaqbalka horumarka dalku waa inuu si adag ugu jiraa gacmeena ayuu yiri sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda balse wasiirka gaashaandhigga Australia Peter Dutton ayaa isku riixay falcelinta Beijing sarkaal Mareykan oo sheegay in China uu yahay halista ugu weyn ee xorriyadda ayaa iyana baaq kala abuurtay tani ma aha markii ugu horeysay oo aan aragnay China sida uu careysan yahay ayuu yiri waxaynu nahay dimuqraadiyadda aynu ku faano waxaynu dariskeena ku garab taaganahay hubinta nabadda iskaashiguna wuxuu gobolka ka dhigayaa mid ammaan ah taasi waa xaqiiqda daacad kastana ma dafiri karto xaqiiqda dhanka kale China ayaa khamiistii codsatay inay ku biirto heshiiska muhiimka ee ganacsiga Asia Pacific iyadoo ugu dan leh xoojinta halkay kaga jirto gobolka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas ayaa si kastaba beenisay in tallaabada loogu biirayo heshiiska ay jawaab u tahay kan isbahaysiga UK Mareykanka iyo Australia haddii ay ku biirto heshiiska CPTPP oo ay sanadkii 2018 saxiixeen 11 dal oo ay ku jiraan Australia iyo Japan wuxuu xoojin doonaa awoodda ganacsiga ee China taas ayaa ina mid kale oo walwal abuuraysa haddaba muxuu yahay gujiska xambaarka nuclear-ka sidee ayuuna u shaqeeyaa dowladda Faransiiska ayaa mar kale wadamada Australia iyo Mareykanka Britain ku eedeysay khiyaano taas waa arinta la isku hayo gujiskan labadan wadan ee Faransiiska Australia ayaa hore ugu heshiiyeen Australia ee gujiska iibsata Faransiiska balse heshiiska cusub ee haatan la gashay wadamada Mareykanka iyo Britain ayaa heshiiskaas meesha ka saaraya waxaana ay abuurtay in Faransiiska u yeeraan safiiradooda haddaba muxuu yahay gujiskan xambaaraya madaxyada nuclear-ka sidee ayuuna u shaqeeyaa waa su'aasha inta badan dadku ay isweydiinayaan gujisyada ku shaqeeya quwadda nuclear-ka ayaa xajmi ahaan ka yar ama la mid ah maraakiibta caadiga waxa kale oo ay kaga duwan yihiin ayaa ah inuu ku shaqeeyaan tamarta nuclear-ka inay xambaari karaan madaxyada hubka nuclear-ka waxayna inta badan quusaan badda balse sidoo kale ay awoodaan inay dul sabeeyaan biyaha korkooda sida maraakiibta oo kale ciidamada badda wadamada Mareykanka iyo Britain ayaa waxay haystaan gujisyo laba nooc ah labaduba waxay ku shaqeeyaan tamarta nuclear-ka oo lagu dhalinayo cadaadiska biyaha badda nooca koowaad ayaa mid wixii la rabo loo isticmaali karayo waana afka qalaad lagu yiraahdo attack waxaana loogu talagalay in lagu burburiyo gujisyada kale iyo maraakiibta kale waxaana ku rakiban gantaal lagu magacaabo Tomahawk cruise missile waana nooca inta badan la adeegsado xilliyada colaadda Australia waxay rabtaa inay hesho gujiska noocaas iyadoo loo isticmaalayo farsamada wadamada Britain iyo Mareykanka oo gujisyada noocaas aad ugu tiirsan gujisyada noocan ayaa in badan waxay quusi karaan badda gunteeda tusaale ahaan ciidamada badda ee Britain waxay ku faanaan in gujisyadooda gaar ahaan nooca ay haatan Australia doonayso ee hadda gunteeda quusi karayaan muddo 9 maalmood balse khubaradu waxay sheegayaan in arrintaas ay ku xiran tahay sahayda shaqaalaha saaran gujiska Mareykanku wuxuu haystaa 53 gujis oo noocaas ah wuxuuna sidoo kale ku rakiban qarab lagu la soconayo halka uu dagaal ku socdo taas oo ah fursad kale oo libinta lagu hanan karayo xilliyada colaadda nooca labaad waxa loo yaqaan bombers waxayna xambaarsan yihiin gantaalada riddada dheer oo balastikada ah ayagoo xambaarsan madaxyada nuclear-ka muddo bil ayaana loogu talagalay inay ku jiraan gunta hoose ee badda waxaana marar kasta ay diyaar u yihiin weerar argoosi ah waa haddii hub nuclear ah lagu soo weeraro way adag tahay in gujisyada noocaas si fudud loo ogaado halkay badda ka jiraan tusaale ahaan gujisyada noocan ah dalka Mareykanku waxay ka garkaban yihiin 20 gantaal oo kiiba xambaaraya 8 madax oo nuclear ah waxayna riddadooda ay gaari kartaa qiyaastii 7400 kilomitir Mareykanku wuxuu haatan haystaa 14 gujis oo noocaas ah halka Britain ay haysato 4 balse ma ahan nooca Australia haatan doonaysa inay ka hesho Mareykanka iyo Britain in Australia hesho gujis noocaas ah waxay qaadan kartaa 12 sano waxaana heshiiska cusub oo saddexdan wadan kala saxiixdeen u dhigaya in muddo 18 bilood ah ay darsaan suurtagalnimada sida Australia u leeyahay gujiska noocaas ah ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in suuragal ay tahay in dalkiisu wala gujiskii ugu horeeyay marka la gaaro sanadka 2040ka gaag daawadayaal muuqaalkeeni koobnaa waa naga intaas nabadgelyo